markii ay taariikhda ahayd 6 bisha Oktoobar kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa ku soo toosay gariirka ka baxaya seeriga bixiya digniinaha sawaariikhda ee magaalooyin badan. kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas ayaa ku dhawaad 5,000 oo gantaal ka soo riday marinka Gaza iyadoo ay weeliso weerar dhinaca cirka ah oo ay qaadeen. Hamas waxay u dirtay dagaalyahanadeeda inay gudaha u galaan magaalooyinka, bulshooyinka kibbutz iyo xataa bandhig faneed dhacayay. Israa'iiliyiinta oo argagaxsan ayaa guryahooda ku dhuuntay iyadoo ay soo baxayeen warar sheegayay in dagaalyahanada Hamas ay fulinayeen weeraro guri ah oo ay ku tooganayeen dad badan. weerarada dhulka ee Hamas ayaa waxa kordhiyay doomo iyo dagaalyahano mootooyin wata kuwaas oo aroornimadii hore ee subaxdii Sabtiga jabiyay dhulka Israa'iil iyagoo adeegsanaya xeelado dagaal. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 100 qof ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka dhaca Israa'iil tan iyo dagaalkii Yom Kippur ee dhacay 1973. inkastoo ay isku dayeen Shin Bet iyo Mossad labada laamood ee amniga iyo sirdoonka Israa'iil caanka ku ah, haddana waxay ku guuldareysteen inay fashiliyaan. weerarada iyo dhimashadu waxa ay dhabarjab weyn ku noqdeen gaar ahaan kalsoonida lagu qabi kara Mossad oo guulihii ay ka gaartay Israa'iil iyo guud ahaan caalamka ku noqotay hay'ad sirdoon oo ku sumadaysan xirfadyahanimo. haddaba sidee ayay u shaqaysaa hay'addaasi Mossad iyada oo leh miisaaniyad sanadeed $3 bilyan oo dollar ah iyo howlwadeenno gaaraya 7,000. Mossad waa hay'adda labaad ee ugu weyn basaasnimada galbeedka marka laga reebo CIA-da Mareykanka. Mossad waxay leedahay waaxyo dhowr ah laakiin faahfaahinta qaab dhismeedka gudaha ayaa inta badan qarsoon. kaliya maaha inay leedahay shabakad xogogaal ah iyo wakiilo gudaha kooxaha Falastiiniyiinta ah, laakiin sidoo kale waxay wadamada cadowga u ah sida Lubnaan, Suuriya iyo Iiraan ay ku leedahay wakiilo. shabakadda basaaska ballaaran ee hay'adda sirdoonka ayaa siisa ogaal gundheer oo ku aadan dhaqdhaqaaqa hogaamiyeyaasha, taasoo u sahlaysa inay fuliyaan dilal toos ah haddii loo baahdo. waxaana waaxyaha ilaa iyo hadda la og yahay ka mid ah waaxda sirdoonka oo ah qaybta ugu weyn ee mas'uulka ka ah howlgallada basaasida ee ay hay'addu ka samayso adduunka oo dhan. waaxda howlaha siyaasadda iyo xiriirka oo qabata dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed lana shaqaysa laamaha sirdoonka shisheeye ee saaxiibka ah iyo wadamada aan Israa'iil la lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah. waaxda howlgallada gaarka ah oo sidoo kale loo yaqaano Medsada waxay fulisaa dilal aad xasaasi u ah, burburin iyo howlgallada dagaalka maskaxeed. waaxda lab ama Lohama Psychology oo mas'uul ka ah dagaalka nafsiga ah, dacaayadda iyo howlgallada khiyaanada ah. waaxda cilmi baarista oo soo saarta sirdoon ay ku jiraan warbixinada xaaladaha maalinlaha ah, kabitaanada toddobaadlaha ah iyo warbixino billa ah oo faahfaahsan. iyo ugu dambeyn waaxda tiknoolajiyada oo horumarisa tiknoolajiyada casriga ah si ay u taageerto howlaha sirdoon ee Mossad. laakiin ka sukow waxyahaas iyo awooddaas oo dhan iyada oo haysata, haddana sidee ayay hay'addu ugu fashilantay inay fahamto barbilowga ilaa fulinta mashruucii Sabtida 7 Oktoobar? heerarka guusha aan la qiyaasi karin ee Israa'iil iyo Mossad ay gaari karaan marka ay timaado dhicisaynta weerarada dibadda ayaa waxa uu fashilka oo daraska weerarkii Hamas ee Sabtidii ka dhigay mid calaamatu su'aal saaran tahay. su'aalo ayaa la iska weydiinayaa sida ay Hamas ugu suurto gashay inay kaydiyaan gantaalada kumanaanka kun ah ee gurigooda ku dhow iyadoo aanay sirdoonka Israa'iil ogaanin, ama sababta uu nidaamka difaaca gantaalaha ee Iron Dome ee Israa'iil ee kalsoonida badan lagu qabo uu awoodi waayay inuu dhaxda u galo dhammaan gantaalada ka imanaya Gaza. inkasta oo tillaabooyinka amniga ee tiknoolajiyada sare laga sameeyay xadka Gaza iyo Israa'iil oo ay ku jiraan kaamirooyinka, dareen sheegayaasha dhaqdhaqaaqa dhulka iyo rondada ciidan ee joogtada ah, haddana weerarkii ay Hamas qaadeen waa guuleystay. dagaalyahanada Hamas waxa uu suura gashay inay gudaha u galaan xeyndaabka iyagoo jaraya godadka siliga, dhanka badda uga soo galaya doomo iyo sidoo kale adeegsanaya dagaalyahano dabaalyaqaano ah. inta uu la ekaa weerarka, xoogga loo fuliyay, isku dubaridka iyo qorsheynta bilaha qaadatay ee u baahnaan lahaa ayaa keenaya su'aalo culus oo ku saabsan sida iyo sababta hay'adda sirdoon ee Israa'iil ay u ogaan waayeen. khubarada qaar ayaana la meel dhigay weeraradii 9/11 ama 11 Sebtembar ee laga fuliyay magaalada New York ee dalka Mareykanka daarihii mataanaha ahaa, kaas oo aan la soo marin hay'adda CIA-da oo kaliya balse sidoo kale laga dusay guud ahaan shabakadaha sirdoonka caalamka kadibna laga fuliyay dalkaasi Mareykanka. dhammaan xeeladaha iyo awoodda ay adeegsatay kooxda Hamas ee Falastiiniyiintana waxaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ay si macmal ah gudaha ugu farsamaysteen, maadaama guud ahaan magaalada ay ku sugan yihiin ee Gaza ay xanibaad saaran tahay.
waa Abubakar Maxamed oo idin leh la socodkiina ayaad ku mahadsantihiin hamoogaanina inaad nagu soo biirtaan talana ku biirisaan Tifaftir Media intaan dib u kulmayno nabad iyo warsan